Sharaf Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxtinimada Koonfur Galbeed oo ay uga harsanayeen maalmo qura. Sharaf Xasan Sheekh Aadan ayaa la doortay 17 November sanadkii 2014 waxaana maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobeyso doorashooyinka uu khilaaf ku hareeyay ee la filayo inay dhacdo 17 bisha November ayaan ku guda jirno. Warar kala duwan waxa ay ka soo baxayaan sababaha iscasilaada Sharaf Xasan Sheekh Aadan. Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aqriyay warqadda iscasilaada madaxweyne Sharaf Xasan Sheekh Aadan waxa uu ku sheegay in ay tahay fargelin toos ah oo uga imaanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya asbuucii hore ay soo gaareen magaalada Muqdisho. Warar kale oo madax bannaan waxa ay xaqiijinayaan in ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolka Bay ay diideen in ay sugaan ammaanka madaxweyne Sharaf Xasan Sheekh Aadan haddii la doorto, taasi oo muujinaysa in cadaadiska dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka saartay dhinaca Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa la aaminsan yahay inay sabab u tahay iscasilaada Sharaf Xasan Sheekh Aadan kadib markii ciidankoodu ay iskaga baxeen qaybo kamid ah gobolka Bay, sidoo kalena ay sheegeen in aysan awood u lahayn inay sugaan ammaanka deegaanada Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya.